maanta noo timi oo had iyo jeer noo imaan jirtay sida shaqadu u socoto waxaa kale noo yimi injineer axmed maxamed marashire ayaa noo yimi oo wakiil nooga ah eeriboorada waddanka takhasus dheerna u leh ilaa 20 sano u soo baranayay dawladda Jarmal ugu soo baranayay hadda ka horna yimi jeclaystayna in eeriboorku dhammaado oo uu arkayo eeriboor Soomaaliyeed inuu yahay waana nin wadaniya oo Soomaaliya oo aan qabiil iyo qof midnaba ku xidhnayn aad iyo aad buu mahadsan yahay waxa kale noo yimi Axmed Cabdi Guray oo magaalada aad u degan oo kule albeerkooyin waaweyn oo khayr Allah siiye hadda ka hor lacag noo keenay oo dibadda nooga soo ururiyay waxa ku xiga xildhibaan Cabdi Waaxid oo lacag noo keenay tiraba 2 jeer oo saacad noogu yimaada eeriboorka inuu dhammaaday sida uu soconayo iyo shaqadiisa gedigood khayr Allah siiyo waxaan ku noqonayaa injineerka oo markan ka hor noo yimi 6 bilood ka hor oo ballan qaaday inuu eeriboorka idin nala dhameeyo inta uu nala dhameynayana uu nala joogo ama mar walba noo yimaado meesha uu marayana la socda ilaa iyo haddatan saakadan uu yimi ka koonu tagay meel walba wuu ka maray eeriboorkani waa eeriboor isaga ku xidhan wixii uu ku hadlo uunbaa ummaddu qaadanaysaa waayo takhasus buu leeyahay waa nin cilmi u leh waa nin muxuu ahaa shahaado u haysta waa nin la aaminsan yahay oo ummadda Soomaaliyeed ama dadka qurba joogtu ay aaminsan yihiin iyagaana soo diray isagaana dhameynaya insha Allah bismillaahi kariim ilaahay baa dhameynaya laakiin aqligiisa iyo fikirkiisa ayuu ku dhameynaya waxaan ku soo waxaan leeyahay horta marka hore bal qudbadiisa dhageysta oo dadka u qaata oo wuxuu idin yiraahdo eeriboorkan uu ka sheego khayr Allah siiye qaata hadduu xun yahay iyo hadduu wanaagsan yahay isaga annagana wakiil nooga qurba joogta wakiil uga ummadda Soomaaliyeed wakiil uga beesha halkan deganna isaga wakiil uga hadduu yiraahdo hadda waa la kasal gareynaya raalli baanu ka nahay hadduu yiraahdo waa wanaagsan yahayna raalli baanu ka nahay sidaa waxaan leeyahay la hadla dhageysta qudbadiisa injineerka Yurub iyo Mareykan iyo Canada iyo Carab adduunka dadka jirow injineerka dhageysta qudbadiisa annagu raalli baanu ka nahay waxaan leenahay wixii uu yiraahdo degdeg u qaata wax ugu qabta ugu dadaala ku tiri ku teenta ka baxa waad arkaysaan maanta oo bishan muxuu ahaa April ay tahay 22 injineerkii la soo diray baa taagan hadda ka horna wuu yimi khadkii uu noo dhisay baanu ku wadnaa khayr Allah siiyo waana ku mahadsan yahay maxamed injineer maxamed mire ku soo dhawow eeriboorkan qudbadiisa iyo aragtidiisa iyo waxa laga qabtay iyo waxa laga qaban doono fadhiyo tafadal ku soo dhawow waad mahadsan yahay السلام عليكم وسلامتين كدين آد بان ugu faraxsanahay inaan imaado Booqashadii International Airport hadda ka hor noocan in 6 bilood ka hor waxa laga qabtayna hadeertan aad bay wax looga qabtay hawl badan baa laga qabtay laakiin waxa dhiman dhaqaale yar baa dhiman oo lagu daro airportku si wanaagsan buu wanaagsan yahay ciidiisi waa qaadnay afarta gees waa aragnay airportku waxa weey mid heer sare ah oo kuwii ugu wanaagsanaa oo Soomaaliya laga sameyn jiray ayuu la mid yahay meel wanaagsanna waa ku yaala wuxuu u baahan yahay in la caawiyo oo lacag la soo diro oo dhaqaale la soo diro ayaa loo baahan yahay airportku waa diyaar waxa ka dhimanna wax weyn ma aha wax yar baa ka dhiman waa shaqeeyeen nimankii joogay Xasan iyo
عمر بني مكي اللي شغيني آد بو شغين أنا شلانو إيمي ما أنتنا ولا جوا إيربورك أفرتي سجيس وصامري شقونا أكسن بالله يقبتي آد ونأكسن وحنا ذيك عد سنة ولا يال دول كانوا دول صوماليات meeshaan waxa u baahan ilaa milyan iyo 800 ama 2 milyan oo qof baa ka faa'iideysanaysa airborkan lamida geeyiga kan lagama dhisi karo waxaan idinka codsanayaa qof kastaba inuu guntiga diica iskaga dhigo anigu garawaan deganahay waa imaanayaa mar kastaan soo kormeerayaa waa fiirinayaa wixii dhibaato ah wixii laga gudbaayo hadda aad baan ula dhacay xasan iyo cumar aad baan u mahadsantihiin waxaan idinka codsanayaa in aad wax ku dartaan tilaawada aad qaadeen aad kordhisaan airborka waxba ka hoosina waa airbor caalami ah weey airbor caalami ah meel wanaagsan waa ku yaala aad u wanaagsan waxaana marka dambe insha Allah report hadda taan design-kooda soo sameeynaya الدواء إذن سلام يا ولا الذي ياد باو سلامتي الدواء اللي كدونه يا إن عمر يا حسن القرب يستاجه وآديات مع لو قرب يستاجه وأنا ما تنتين أنت زين. صلى الله عليه وسلم ورحمة الله سبحانه وتعالى يا مهد سكله. إنه سوف تجلي هوشان أذق أو هذا الأورن كريه بلا آدم كما بيكره. لكن شو هذي بدن إلهي سبحانه وتعالى خليف ركبه وقد يعرف الله aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa howlwaneednada airborka ee u dhawar adeegay waqtiyada adag ee duruufaha adag lagu jiro ee kala duwan ee maxaan ku raahdaa waqtigoodii iyo fursadoodiiba u lumiyay iyadoo oo maanta ay bil aadamkaba ku yartahay oo dadka lagu yaqaan dabeecada caadiga ah inay in badan dadku danahooda khaaska ah ay ku fakaraan ama ay ku mashquulaan laakiin waxa isku qaban waday labada nin waaweyn oo odayaasha ah waayeelka maxaan ku raahdaa xooggoodii iyo maaragtay hadda tabaradoodiiba la oran karo waa rag waaweyn oo xilligii maxaan ku raahdaa caruuraha iyo islaamaha ay ugu jeclaayeen ku jira inta waxaas oo dhinac iska dhigay maanta danta caamka ah ku mashquulay waxaan dhihi karaa ma aha wax kale waa mucjiso aan ku tilmaami karaayo ilaahay baa meeshaan wax weyn iyo wax bilaadan ku intifaacan ka soo wado waa arrin lagu hanuuniyay baan dhihi karaa marka waxaan leeyahay arrinta waa idinku dhiirigelinaynaa waa idin garab taagannahay arrinta caamka aad ka shaqaynaysaan adduun iyo aakhiraba waad ku liibaanaysaan kuna khasaari maysaan wax yar baa idiin haray guushuna waa 5 daqiiqo cagaha dhulka lagu hayo waayo isma lahan hadda asbuucii hore iyo asbuucan markaan anagu hadda imid farqo weyn baa u dhaxeeya waxaan ilaahay marka idinku ilaahay baa idinka abaal marinaya waxa qof walba uu qabtoona adduunkana maxaan ku raahdaa taariikh iyo wajiga sharaf u ah آخرنا قفكم قبر مضوب وقال يا عمل كل قال يا عمل كوناكسنا وقفكم قبته إلهي بقى أول مرني مركم حين رجعنا الدنيا آخرة هنا محمد كور هذا كوي عمل كذا هي علم كذا هي عمر كذا بلوقف فايدة أنا كفايدة إلهي نوقف قرقارنا النقطان وعن كل أصلا أنا مهد قارو تشيدنا يا إنجنير مka ورنتي وقتي سي هراء وقتي سندما وسوسي إنه كشقيو أرن عانا waayo qofka waxa wax loo baraa wixii wax loo baray way waxa suurtagal ah in cashuurtii Soomaaliya kullu waa nin aniga iga weyno cashuurtii Soomaaliya wax ku soo barto Jarmal waxaan malanayaa reeraha arigooda kuma tagin aad buu maasan inuu soo celiyo oo wixii qaranka dib u soo celiyo oo ummadii dib uga faa'iideeyo asagana aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa aqoontiisa iyo dardaaranka hadda naga siiyana waynu ku wada dhaqmi doonaa waynu wada raaci doonaa waxaan ayagana dardaaran gaar u soo jeedinayaa dhammaan qurba joogta iyo kuwa dalka jooga ee goboladan ka soo jeeda in ay airborka la dardar geliyo wax badan baad qabateen baan leenahay cidii wax qabatay ayadana mahadaas iyo ajriga iyo xasanaadka way leedahay waxaan leenahay hawshii in yar baa inoo hartay wax yar baa ka haray waxa yar ee ka haray aynu waqtiga iyo maalka iyo intaba aan hurno inta yar ee hartay nimankaas maxaan ku raadaa kaariyoon bay ku shaqeynayaan hawlaha kala macadaad iyo waxa loogu tala galay maxaan ku raadaa baaldoosye iyo maxaan ku raadaa iqtisaad aan caadi ahayn in la geliyo waxaynu fahamnay in kaariyoone iyo hangool iyo maxaan ku raadaa faash in wax lagu sameyn karo gudin bay wax ku wadaan faash bay wax ku wadaan
مدرق أو مشرفات وحوت غانين بوحكوا ذا كريون وحكوا ريحيان أجاب كلام ما هيستان مركا وحا إنتا كان إن إنتا جارسيان ونيوض وناكسن ويا إخلاص كأ أنا غرض كلا هنا أيدونا يعني إني واحد وناكسن قبطان إلهي سبحانه وتعالى نوا ما عرفت السورة تجلي كالنت إن قلت تاجن إنه لنا هاي وإنه قلنا كيس تاجنا هاي ربورك وإنه ما عرفت جرب استاجنا وإنه هوشي سمحان كرادا أينان كهب صامين وحي هراء إنه قدرنا حول كلام الدالو ينو دباش ولي وينو تاجنته آدي أدو ما سنتي. الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bulshada beeshay meel kasta adduunka joogtaanba sida odayaasha iyo khubaraadu ay ka warameen waxaan taaganahay Booqashadii International Airport insha Allah oo hirgeli doona meeshu maanta marayana meel la malaysan karo sida la sheegay in gudin iyo hangool lagu gaadhay iyo of course lama dayacay shakhsiyaad aan badnayn oo dalka u dhashay oo tabarucaad soo bixiyay dadkiina dhalinyarada ah ee dalka ka maqan ama joogo waxa loo dhisayaa airportka waa idinka annagu waqtigayagii waa gabaabsi hoggaanka saa u qabsan lahaydeen iyo nolosha yaa idinka maanta la idinku boorinaya inaad tartanka adduunka maskaxdiina iyo maalkiina iyo mustaqbalkiina u soo jeesataan oo aad dalkiina dhisataan waxa la yaab leh waqtigan la joogo nin waliba aan jeclay inuu isweydiiyo ee Soomaaliya oloshay ee dhibaatadu ka jirto ee aan nabadi jirin ee aan degaan jirin ee qaxooti lagu taagan yahay kii aan qaxooti markaa ku jirin faraha hore ugu taagan yahay meesha uu carari lahaa in weli Soomaaliya uu nabad qabo buluqtan iska dhaco marmarka qaarkood inuu xor yahay in mustaqbalkii labada gacmood midna lagu haysto nabadda iyo horumarka midna difaac marka waxaan hadalkii u gaabinayaa waxa weeyaan caruurihiina dibadda jooga ee wax bartay yaa dalka mulkigiisii u badan ku soo celiya oo wax u maalgeliya airporto iyo mustaqbal dambe oo kale oo badan oo la socda waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa waa maqlayseen warbixintii injineerada iyo odayaashu ay ka bixinayaan airportka waxaan idinka codsanaynaa oo marti idinka nahay gaar ahaan bulshada beesha ee qurba joogta ah riboodka injineerka akhrista waa madax bannaan yahay waa nin wadaniya Soomaaliya aqoon u leh tadriibkiisii sameeyay dhowr goor yimi riboodo hore uu qorayna aad la socotaan ka maanta finalka waxaan idinka codsanayaa in aad akhrisataan oo ku camal falataan oo wax ku qabsataan haddii iminka qof kasta oo beesha u dhashay ama inta sama jaceelka ee Soomaalida ah ay $10 bil qura u soo bixiyaan airportkaasi waa dhammaan lahaa haddii 3 bilood ama 4 bilood inta beesha kaliya ay $20 saarta bishiina waa dhammaan lahaa waxa taa ku rumaysanaysaan halku taagan yahay maanta iyo waqtiga la bilaabay iyo sida lagu bilaabay yaa ka aqoonsanaysaan halka ugu dambeeya hadalkaygana waxaan idin xusuusinayaa inuu dhulku nabad yahay oo investment la gashan karo in uu dadku wadaniyiin yihiin oo ay dalkooda wax ka qabsan karaan waxa idin cadaynaysa in waqtigan la joogo oo dagaalo iyo dhibaato dalkii dunida Soomaaliya ay ka taagan yihiin horumarkaas oo kale bulsho iska wuxuu qabso beeladan oo isugu yimi oo ku midoobay oo progresskooda halka marayo taasaa darsi idinku filan waxaan idin leeyahay riboodada aqoon-yahanada engineerinta iyo rag kale analistaha akhrista ku dhaqma ficilkiinuna ka hala socdo waxaan idinka rajaynaynaa insha Allah waqtigiisa fasaxan hadda lagu jiro ee iskuulaadka fasaxa noqonayaan dibadda
waxaanu rajaynaynaa fasaxiisa dambe inaad buuhoodle international airport ka soo degtaan idinkoo qoslaya oo faraxsan oo carruurihiinnu rajadoodu markaa ay furan tahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ماشي على الدنيا لا بكليه بس صافي وصعنا يا صافي